magacaygu yahay Salmaan Cali Meydel kana mid ah dhalinyarada gobolada galbeedka Soomaaliland waxaan halka ka hadlayaa maanta arin aad u foolxun oo uu ku dhawaaqay nin yiri siyaasi baan ahay aanan laakiin siyaasi ahayn oo anugu ku suntay awrheeriyadiisa cunay ninkaas oo ah Faysal Cali Waraabe sababtoo awrheeriyadiisa cunay yahay waxa weeyaan isagu nin Hargeysa ku nool qabiilkiisuna Hargeysa ku nool yahay laakiin Hargeysa Boorama wada Somaliland ayuu kala dab qaaday kolkuu yiri reer Hargeysa reer Boorama Yuhuud bay ku sheegeen oo way isir nacab yihiin kolkuu ku sheegay uu kala dab qaado dadkii uu isku diraya sidaas ayuu ku yahay awrheeriyadiisa cunay barina codna uga sugayn Faysal nin awrheeriyadiisa cunay mii wax lagu rarad sugi doona Faysal sidaas uu yahay siyaasadna halkaas uu ka taagan yahay tan kale ummadda shacabweynaha Somaliland mid baan u sheegayaa siyaasigu kolku uu wax doonayo ayuu dadka isku diraaban leh hadalka Faysal yaana dhig loo taagin oo ma aragtaanay shacabweynuhu yaana wax laga soo qaadin baan leeyahay waayo Faysal waa nin hadalkiisu hore loo bartay hadal wanaagsan loogama baran been baa laga bartay hadal xanaf laga bartay waa tii uu horena loo yiri dhuusa geelma oo shamana urto Faysal waa kii uu reer Boorama aanu mid baan u sheegayaa waxaan u sheegayaa wax ma aragtaanay isir nacayba oo ku kacdeen ma jirto ninka hadalka xun yidhina waa nin isagu iska yidhi wuxuu yidhi isaga baa yidhi marka waxaan ku soo koobayaa Somaliland waxa burinaya waa Faysal Cali Waraabe ee meesha tabasho u bataalay tabashadaas oo ah waxba iga maqan tiina ma burin wayna taali doontaa ilaa wax la kala qaybsanayna Somaliland waa koruxay magacaygu waa Qaasim Muuse Daahir Hanfi ku nool magaalada Boorama haddii aan ka hadlo ku hadlay Faysal Cali Waraabe wuxuu sheegay inuu Boorama yimi dhimashadii garoonka ka bacdi inuu Boorama yimi ayuu sheegay waxaan soo arkay buu Boorama oo laga nacab yahay isaaq bal qarimay beesha dhexe buu beesha dhexday isaaq baa galay Boorama isaaq laga nacab yahay soo arkay buu halku ku arkanaayna isagayna tus warjaarkaaga lama doorto ilaahay baa ku dooray subhanahu wa ta'ala laakiin saaxiibka waa dooran kartaa qofka doonta ma saaxiibi kartaa isaaq iyagada buursina ilaahay baa si dooray inay jaar noqdaan wax kala dhamaanaya ilaa suurta la afuufo ka hor ma jirto marka Faysal عقدة أو كبيرة يعرضها لأن يرادا السكر يستمر مستقبل كله ولا هرجيسي جوكتو ولا والبور مو اللي كان عبيه لأن وجهنا سجود مذوبيسي وجه هي هدو إلهي جرنا وروح هاك طبط كانوا هاك هالجيلنا كبحيو البور ما يساق لقمنا نعبا ويشوجان ساقوا يكونوا ليهين يا لكن واحد وجه شيء يصير فوش حون له وتفهمي وايد وانا ندير ودنا قدوميه شيغانيا ربا انه مستقبل ودن هوغاميو ليدر نقdo saana waa u dhaqmaya xiskiisa caadi ma ahaan u maleynaya adag maalin bacay inuu hadlay midda kale hadda ka hadlay wuxuu gadi bursi muxuu ahaa nin baa arkay la dhigeel ma una garanin geel warano ma warag nin maskax loo haayo wuxuu yidhi waxa ninka aan garanay wuxuu ku tilmaami lahaa شيخ فديري دي مجيلة ها جيلة أني كان قرنين محوك تمامي لكن قرنا يروى قرن كيان قرنينا الله بشيء معي ده فسردونه كده برسي قرني وحويا ده لبني معي مان يسوي دي بهاو صبرته يا ما قرن بركة وح حمانا أو تحتها الله ومدنا والوذاكتها وحوض له مجكت واحد حيالا أو حمانا وننقو هاينو إساق هواي يراتي مجكت horeyna ugu aanan hayn imikana uma hayno waxa kaliya la sii yar qabsaday waxa ahayd in wixii aan ku dhisnay Boorama 1993 Sheekh Ali Jawhar ku dhisnay oo maanta dhan ka raran baan warsan kuma qurux badno soo kuma iibsamaysid Somaliland si ku iibsamaysid si yar ka qurux badan hal loo dhigo de markii gudoomiye baarlamaanka kii guurtiya kii sharci dejinta kii fulinta kii ma taqaanay garsoor wixii ay qaateen
ما دولة لليه هي ودليه با مسوا وحر ليه لا ما كوداش الوزير كي أريمها دبده يجا قاد كي أريمها جودها يجا قاد كي مال يروح ما يساق لان با مسوا سمال لان تندس تاس أمبال هيايو واربح يساق لنا كبدله وسمال لان بنسل سمال لان تسمسنا أمبال هياي وح عنصرية يحمل جرتا دفاس البيكو جرتا وحس معايق عبد الرحمن محمد عبد الله وكما عدير عبد جيله أهنا دميرة قولة قلبات هدي أنا كهالله كلمة كهالله فيصل على التيفي ده وتكلمة أدنى أوضح لي لنا وحني سياسي كهالله ما أهين فيصل على روح ربع الله ما ما وحلا يدوسه قال ما أرتمن أوش أفهم فيصل ما أمنا من الدين يو أنا دبي ما يسألنا بتكلم حراعنا يا ما تلاقى بلا فيصل على روح حسينا شهادة أفهم هذا القدوسيننا أدنى هذا نيرة قولة قلبات ما بدين يبه nin siyaasi istaa waa looga fiican yahay waxaan leeyahay Faysal siyaasaddaadu waad ku fashilantay injineernimadaada iska noqo majarafadii wixii qaado taasaa ku dhaantay reerkan aad leedahayna waa baashan sidigta maandeeq waan wadaneel annagu waan ku faalan dhalinyarta dambe haddaanahay waxaan ku faalanaa Hargeysa waxaan ka weyn inaan Muqdisho ka helin baan ku faalanaa heerkaygu taas u gaarsan yahay markaad leedahay beesha dhexe waa lacay war gobolka awdal beesha dhexe iyada ka talisaba haday maaliyad tahay haday maamul tahayba haddaanu dhicibnay gobol degmo dhicin runta in loo sheego weeyaan dad aanu jecelnahay weeyaan waa dad aanu gacannahay waa dad aanu jaarnahay sidigta maadeeq waan wadaneenahay tan la isku haya waxa weeyaan ee cid walba laga marxaati kacayo sidigtii maadeeq wixii aan ka filayna sidii aan ugu lisnay ayaan la noogu hambeena tii uma rabnaade ee wax kala ma laakiin istirnacayb iyo yuhuud lagu sheegayo waxaas wax ka jiraan ma jirto dadkan aanu ma lihin waa la wada fiicay ma ornayo in wanaagsan waanu leenahay in yaro qayr mas'uulna waanu leenahay laakiin inta qayr mas'uulka moodo talaada reerkoo dhan wax reerkoo dhan matalaan oo nin siyaasi weyn oo beritool cod naga raba oo ku hadla ma taas waanu cambaaraynaa Faysal Calawa shalay soo markaad walaalayaal lahayd waan ku sacabtumay imikana hadda soo aadaad timaada adiga soo hadlay waan ku soo dhaweynaa waan ku cambaxnay taa laakiin fadhigu ka nago adiga la mahmaahdan bad noqonaysaa wax weeyaan Faarax Ismaan Faarax Abraar waxaan annaga oo dhalinyaro oo ku hadlaynaa magaca guddoon afka dhalinyarta gobolada galbeed waxaan aad uga xumaanay oo wax laga xumaaday ku timaantay nin dhan oo sharaf leh oo guddoomiye xisbiya oo annaga runtii xaqiiqa sharaf aad u weyn ka mudan intuu soo fadhiisto television publica nacam ka hadlo wax la yiraahdo isirnacayb horta guddoomiyuhu waxa weeyaan madaxda Soomaaliland waxa waajib ku ah dalkan nabadeyntiisa dhalinyarta in la isku soo keeno oo laga wada shaqeeyo nabadda walaalnimada iyo dalkan sidoo ku sii jir lahaa way iyagu way ka tagayaan jiil kala bedelaya jiilkaasi waxa weeyaan in looga sheekeeyo oo la yiraahdo farba farta ku xigta lagu kabaayo in la yiraahdo beeshin nagu xigta beeshan kale waa u muhiim oo dhalinyarta lagu yiraahdo dadkan waa dad walaalaheena waa dad aan inta ilaa yawm qiyaamahu dhacayaan is agdeganaanay waxa weeyaan marka madaxda Soomaaliland ay ka fogaadaan waxa la yiraahdo kala qoqobka bulshada gudoomiye Faysal wuxuu maalin dhawid ka yiri reeboram iyo gobolka awal wala isirnacayb wana la nacib yahay deanu ma garanayo nacam gudoomiyuhu waa nin weyn qofku markuu weynaado mudooyin badan doorashooyin soo galo laga badiyo nacayb baa gala waxa weeyaan nacayb fara badan baa galay qofku markuu muddo badan inta tartan soo galo laga badiyo waayo waxba lama hadhayo dalkii waxba lama hadhayo ereyada ku dhawaaqay waxay keenaysaa in dad aan waxba ogeyn ay wax kale ku abuurto wax isirnacayb la yiraahdo booramo reer laga necib yahay ma jirto laakiin tabasha taala dadku waxun bay tabanayaan tabashadaasina waxa weeyaan halkeegi waa la hayaa waa la garanayaa geel jira waxa la yiri isagoo og halku geed kaga goynay ayuu dham halkan ka gooyaa waynu ognahay tabashadu iyo halkeegu sida ku iman karo wax weynna ma iyadoo tan ka xun lagu jiro ayaa la soo maray oo laga soo heshiiyay odayaal ka soo taliyeen oo heshiis fiican iyo ummadan wada noolaad iyo qurux badan ay ku soo noolaayeen marka gudoomiye Faysal waxaan leeyahay fadhiga uga noqon kala gelinna waa inaad ka bixisaa
waayo xisbi dhan baad hogaaminaysaa xisbigaasina cod buu doonayaa in la siiyo maaha xisbiga inaad galaafatid haddii aadan wadi karayn xisbiga dee ragga kaa hooseeya uga tanaasul waayo anigu uma arko dee guddoomiye afkaa intuu ku hadlo haddana cod bulsho dhan baabiiyo waxba aanin jirin ka soo qaado haddana cod baan iga doonayaa beri odhan doonaa uma arka xisbigaasi inuu sii jiri doono waxaan leeyahay raggan madaxda cali gure iyo muxuu ahaa jamaal cali xuseen iyo cabdirashiid iyo ha iska eegaan odaygooga duqooga ha eegaan baan odhan lahaa diin maxamuud aadan qaalib waxaan maanta halkan isugu nimid annagoo ah dhallinyarkii gobolada galbeedka somalilan halkan inaan ka cambaarayno guddoomiyaha xusbiga ucid faysal cali waraabe oo habeen dhawey TV international oo meel kasta laga daawanayo hadallo aan cajabin ka yidhi annaga haddii aan nahay dhallinyartii mustaqbalka u soo kacaysay somalilan kaasi oo ahaa TV-ga Honkable TV waxaan daba taagannahay laba qodob qodobka koowaad wuxuu ku tilmaamay oo uu afkiisa ka dhawaajiyey in gobolka Awda gaar ahaan magaalada Boorama laga neceb yahay oo isagoo sida uu ku tilmaamay beesha dhexe oo uu yidhi waxay u yaqaanaan dhalinyarta hadda soo koraysa iyo cidda awoodda ugu badan kula gobolka dadka waxay ku tilmaamaan yuhuud horta waxaan leeyahay Faysal qof islaam oo shahaadanaya laguma tilmaami karo qof yuhuud kuma tilmaami karti qof islaam oo qof shahaadanaya isagu camalkiisu wuxuu doonaa ahaado Faysal laakiin waxaan u maleynayaa wuxuu ilowsan yahay dadkan inay yihiin dad wada dhashay qaraabo iyo ehelnimo iyo xididnimo ay ka dhaxayso ilowsiyaan u maleynayaa isagu Faysal qoysaantiisa hadduna dadkan waxba kala dhaxayn gobolada Awdal waxaad ogaataa Faysal inayda Awdal waa Hargeysana waa Awdal haddii maanta dib u ka dhaco Hargeysa hadduu u maleynayo Faysal in lagu farxayo waxaan u sheegayaa wadada u dhaxaysa Hargeysa iyo inay Hargeysa iyo dila u dhaxaysa inay buuxsamayso maanta Hargeysa wax ka dhacaan oo gurmadka ugu badan uu ka tagay inay dadkan ku sheegayaan nacaybka haddii ay Boorama wax ka dhacaan dadka ugu badan waxa ka soo baxayaan Hargeysa marka Faysal waxaan leeyahay wax dilowsantaan dadkan inay dad dhalay yihiin oo jiil awow ilaa ka awow isku soo abtirsanayeen inay yihiin isdalka waxaan leeyahay guddoomiyaha tahay waa dadka ku ogolaaday baan nahay adigoo Finland jooga oo qaxooti ku ah Finland inaad madaxweyne ka noqoto oo aad ku soo sharaxdo Somaliland waxaanu nahay dadkan codka ka doonaysa ku ogolaaday haddaanu Faysal nahay dad nacaya ama dad ku tilmaamaya kuma aan ogolaaneen inaad gobolka soo gasho timaado gobolka kuma aan soo dhaweyneen waxaan leenahay Faysal mar hadalka adigu aad leedahay dib iskugu noqo dadkan waa dad wada dhashay meel ma kala tagayaan waa la isku qabsan laakiin wixii la wada cunayo waad iga badsatay iyo waad iga yareysatay waa la isku qabsano weligeed bay jiraysaa Faysal laakiin lagu kala tagi maayo waxaad ogaataa ilmahaagu inuu Boorama si xor ugu noolaan karo sidoo doono u mari karo halkuu doono uu ka mari karo xilliguu doono anna waxaan aaminsanahay aniga iyo ilmahaygu inay Hargeysa say doonaan u mari karaan xorna ugu noolaan karaan aad baan idin salaamaya idinka saxaafadana sheegno waxaasi inuu keliya u khuseeyo Faysal oo keligii ku kooban yahay cid kalena ma cambaarayno cid kalena eedeyn mayno xisbiga wada eedeyn mayno laakiin Faysal على ورامح كسر هذا الفولحن أو شيء إن دليرت الرير أودل دكت الله وقبته هو سيسر الله وشيء يصير نعيب كدن فاش أسحاق وحلاها هاي فاش سمرون الرش أسحاق وتضوى هذا لو تجي منطقة فيسر وحلاها هكون نقول باكت على حسب أعد هكون نقول نمر دايما وباهن وكي على حسب أعد حسب waxa ka sharaxan dhalinyar milgiye maamuus leh aqoon-yahan ah u soo horay dalkooda inay wax qabtaan markaas ku noqon dhaawac dhalinyartaasi aad ku dadayr aqoon-yahanada waxaan la walaaka Faysal war hadii reer Awdal necab yihiin ama reer Deebush necab Isaaq dhalinyarta Boorama jaamacadaha wax ka baratay ee reer shaqs xaaka timid Burciyo Zanaaq iyo ka timid Hargeysa Barbariyo dhamaan Gabiley kuma noolaateen iyagana wax laga weydiin in reer Samarooyihiin dadka nacab
waxaan la markaa walaalka Faysal ama guddoon Faysal waad qaldantay raaligelin ka bixi ummadan reer Sheekh Samaroona waa ummad idin jecel markay soo naga talsa waa haddaan nacabnahay beeshan 39kii ama 19kii burcana